munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana uu ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Cabdullaahi Goodax Barre xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir odayaal dhaqameed iyo waxgarad Soomaaliyeed ayaa waxa lagu caleema saarayay mid kamid ah ugaas ay yeelanayso beelaha Soomaaliyeed Garaad Jaamac Ismaaciil oo kamid ah waxgaradkii munaasabada caleema saarka ka hadlay ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyay ugaaska maanta la caleema saaray waxa uuna kula dardaarmay in ugaasku uu shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed waxaan u maraynayaa ugaaska hawl ballaaran bawta ugaas boqortooyadu waa geed harbi weyn oo meel cilaa ku yaal oo ummadda oo dhan ay ku soo hidato weyn oo xayawaan ku soo hirtaan weyn haddii geedkaas duli ka kaco oo baala ka kacaan dad iyo dunyadintuba waa ka tagaan waana cadaaladda weyn haddaad cadaalad ku shaqayso waa lagu soo hiranaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa hoosta ka xariiqay ugaasku uu kula dardaarmayo in uu ka qayb qaato nabad ku soo dabaalid iyo horumarka dalka isla markaana uu ku dadaalo sidii ummadda Soomaaliyeed looga samata bixi lahaa dhibaatada annagu maanta waxaan haddaana gobolka Banaadir waxaan ku faraxsanahay ugaasyada Soomaaliyeed ugaas ka mid ah in lagu caleema saarayo magaalada Muqdisho waxaan rajaynaynaa ugaasyo badan ee qabaa'ilka Soomaaliyeed ah in lagu caleema saari doono halkan ay rajaynaynaa waana soo dhawaynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo xafladda caleema saarka goobjoog ka ahaa ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay kaalin aan la xaqiri karin ka qaateen sidii loo samata bixi lahaa dalka isagoo hambalyo iyo bogaadin u jeediyay ugaaska cusub ee maanta la caleema saaray sida la socotaan 20 sano ee soo dhaafay waddankeena markuu dudumay runtii colaad xun ee aan iskaga sheekeynay soo martay dadkii gacanta loo geliyay inay waddanka badbaadiyaan waqti laga joogo hal sano iyo bar ku abaaran waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka kulligeen waxaan ognahay sidii wanaagsaneed oo nafti hurnimada ahayd ee ay xilkaas u qaateen waddanka lagu badbaadiyeen xukuumadda maanta jirto ee uu dhalay baarlamaanku waxaad ogtihiin in baarlamaankaas odayaasha dhaqanka ay dhaleen runtii Soomaaliya maantay qiimo weyn iyo qadaro weyn ay u hayaan odayaasha dhaqanka ugaas Cusmaan ونلا شقي حكومة كمدها ونلا شقي برلمان كأن شيء بقي وحدة قصي أيوها وقاسيدي يو رقاشي وقيمها بدنا اللي دول لماذا ما أنت علين أيو كمدها ugaas Cusmaan ugaas Cilmi ugaas Cumar oo ah ugaaska maanta la caleema saaray waasna goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu aad uga faraxsan yahay isla markaana uu u shaqeeyo doono gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed sidaas ayaan jeclahay ayagana ay ducayaan waan ducaynaa Soomaaliya oo Allah ku soo dumo meel walba ay joogto Allah ku soo dumo marka ay sabto ilaahay waxaan ka baryaa jeesh oo dowladda ilaahay ayagana kooyaan oo Soomaaliya oo dowladda iyo amayaasha ayaan u mahadnaq odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa door muuqda ka qaatay dhismaha dawladda federaalka Soomaaliya ee xilligan aan ku meel gaar ka ahayn Mustafa Maxamed Xiile telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho.